booliska Ingiriiska ayaa digniin u diray amiirka 97 jirka ee ay u dhaxday boqorada dalka Ingiriiska Elizabeth. Digniinta booliska u diray amiirka ayaa daba socotay sawirro ay wargeysyada dalka Ingiriiska qaarkood faafiyeen oo muujinaya amiirka oo gaadhwada isagoo aan xidhan suunka ammaanka. sida uu ku warramay wargeyska The Mirror ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, Amir Philip ayaa sawirro laga qaaday maruu gaadhigiisa Roverka ah watay beerta Sandringham ee duleedka London oo ay degan yihiin isaga boqoradu. Philip gaadhigiisa nooca Land Roverka loo yaqaan ayaa la arkay Sabtidii 19 January isagoo wata agagaarka beerta Sandringham oo uu ku yaalo guri ay ku nastaan boqorada iyo odaygeeda Amir Philip. inkastoo sawirrada amiirka laga faafiyay aan lagu arag isagoo gaadhiga bilaasoon ku wata jidadka iyo magaalada dhexdeeda, haddana booliska ayaa talaabadan u arkay inay sharci darro tahay. wargeyska The Mirror waxa uu sheegay in markii sawirradan la faafiyay haweeney afhayeen u ah booliska Ingiriisku ay arrintan ka hadashay. afhayeenka ayaa warbaahinta u sheegay in boolisku uu ka warhelay sawirrada, digniintii ku habboonaydna la siiyay darawalka gaadhigaas la soo sawiray waday oo ay uga jeedo Amir Philip. waxa uu afhayeenku sheegay in talaabada ay qaadeen ay tahay qaadaan markasta oo qalad noocan dhaco. in wadaha baabuurtu suunka xidhan waayo isagoo jooga meel isaga u gaara ma aha dambi uu ciqaab ku mutaysanayo, laakiin waxa uu boolisku siinaya talo iyo digniin cadaynaysa inuu xeerka gaadiidka xaynta ku gafay kana digtoonaado inuu qaladkaas oo kala dhaco. Amir Philip ayaa 4 maalmood ka hor markii sawirradan laga soo qaaday waxa uu galay shil gaadhi kadib markii uu gadoomiyay gaadhiga uu watay oo ku dhacay gaadhi kale meel ku dhow isla beertan ay degan yihiin, laakiin wax dhaawac ah ma soo gaadhin. laakiin gabadh wadatay gaadhiga ay isku dhaceen amiirka oo 28 jir ahayd waxa soo gaadhay dhaawac jilibka, waxa iyaduna jabni soo gaadhay gabar 45 jir ahayd oo la socotay. haweeney afhayeen u ah Amir Philip oo isla markii uu shilku dhacay Sabtidii warbaahintu weydiisay shilka waxa ay ku jawaabtay. amiirka waxa hadda gacanta ku haya booliska degmada Norfolk oo ah halka uu shilku ka dhacay. Cabdi Fataax Red, codka Bariga Afrika.